الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي يوم هذا سبحانه وتعالى إلهي يوم كليجي مهذا إلهي جاي نوسو تجلي إنا نقطع شو ونعكس قبصنا إلهي عدل كينك عم تنوسو كلي يوم هذا سبحانه وتعالى ولا ريال وحيان عاديات ومهنا غنا إلهي جاي نوسو تجلي الدور الشدي نبض تكون علي يد وانجلنتي دلكينا markii uu horeysay dhul aanay ka dhicin ay ka dhacday iyo doorashadii ahayd doorasho loo dhan yahay oo maanta rag iyo dumar ka qayb galeen iyo beelaha laga tiray badan yahay waxay doorashadaasi noo keentay magac iyo maamuus bay noo keentay adduunka shacbiga reer Soomaaliland niyad ka burburtay oo soo noolaysay arrintaan sameynay ee labada xusbi ay sameyseen isbahaysiga waa iska caado mar hadduu xusbi qurni gaari waayo majority-gu ku qaabsan lahaa ku qaadan lahaa hoggaanka baarlamaanka waa qasab markaa inay laba isku tagaan laba kun iyo shantii ra'yigaas ayaanu keennay haddaan u cudnahay kulmiya ayaan la bahawnay wixii aan u samaynay sababtina waa tan maanta jirta wax nasiib daro ah isbahayska aanu samaynay iyo shirkoodoonka aanu qabsannay sidaan ugu talagalay inuu shaqeyn dhibaatadii maalintaa taagneed haddaan imanka islaa khudbadaydii 2005 ayuu mal akhri kari lahaa laana wixii aan ka hadliyay in la hagaajiyo lama hagaajiyo waxaa naga daray weliba shantii sano may ka dhamaatay uu ka tegey golahaasi gole ummadeed ee wuxuu noqday danaysayaal bay soo baxeen 15 sano oona waxba qaban oo dadka masaakiinta ah cashuurtooda ay mushaar u qaadanayeen oo ceeb inoo soo jiiday oo la baxay baarlamaankii adduunka ugu tamarta yaraa uguna cimri dheeraa ayuu noqday horta ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ahayn maanta kii oo kale ka dhigin subxaanahu wa tacaala in ilaahay ka dhigan ma ka barya waxaan leeyahay Soomaaliya haddaan nahay horta jabad baynu fadhinaa jabadka ma reer miyiga galay qol cusub garan maayaan gurigii uu indajiyay maxamed xaashib raaciga ilaahu naxariistee oo maanta institutionska maanta shaqaynaya inoo dhisay oo Saw Cabdiqaadir sheegay uu ka sheekeynayay baarlamaanka inuu cidlo fadhiyay baarlamaanku dalkoo dhan bacaan ka hayo institution qura inoo dhisnaa ma ahayn وساردو ما هيسن حفيزة ما هيسن قلب ما هيسن Somaliland دم بس بينو كسر حصارنا إيش يعني كسر قارن بربري باباي عروض جنوا وجيدين بحكوا فريق جنين أنا بورها أيوة فريق ما أنت الحمد لله مال في عمل مرنا هوي ما أنت دائما كأن شوقنا عاو حمرنا وحكي الصعداء doorashadii Soomaaliland aqalka sare iyo aqalka hoose ee dadku tawaanayda ma idin sheegaya la inoo geeyay dadkan caaga badnaanteenu inoo geysay 60kii waa aqliga maanta ku leh guddigii doorashooyinka Soomaaliland aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa la sameeyay bisha 7deeda waxa weeyna inaga waxa uu waan 1790 ayuu mareenku soo saaray sharci la yiraahdo Logan Act oo ka mamnuucayo dambi ka dhigaya qof muwaadin oo ah Mareykani inuu wadan kale heshiis la galo inagana inta jirnay ayaa lagu bilaabay 2000 ilaa 2010 ee carta lagu qabtay
ina qaarina sheekaystaan ina sheegtaanoo oy magaceena heshiisa ku galaan halkaas waxay ku tustaa inaynu tamar aynu ku sameyno sharci aynu sheegay waxaan baarlamaanka leeyahay boqolkiiba 5 waxa weeye in dawladdu soo saarto sharciyada ay dalka ku xukumayso baarlamaankana uu ka eego dawladdu waxba soo saaro weeyde hawshaas idinka ila haysata hawshaas idinka ila haysata sharci maanta aynu leenahay ka caanka Soomaali qaatay oo heesay sharci qabanaya ma jiro oo sameeyna kii security gaan jirin nabadgelyada kii qofka khatar geliya kii magac dilka aan jirin qofka magac dilka adiliya kii dadka isku diriya masaajidada aragto qaar bad aragto waxaan ahayn hatred iyo isku dir umadeed ana ka soo bixin ogaashi ba aragteen oo beelbeela caayisa waxaasoo sharci baa laga soo saaray u baahan soo saartaan saas oo baahan ana waxaan sharci hala soo saaro dalka lagu hogaamiyo idinkuna sharciga ilaaliya idinkuna sharciga ilaaliya Abdirsaaq waa ku kalsoonahay dad badan oo heer mataqaanee sool ka hor taagnaa Soomaaliland ayaa aynu ugu jiray baarlamaanka albaabka ka baxay shalay علي خليفة هيش إسلامكم ودتين هذو Abdirsaaq yahay gudoomiyaha baarlamaanka inagoo qaabto mar dhameeyay arrinteeda ayuu shanada gali lahaa waawtan maantana waxaad ogsiino laasaanada weligeed laga dabaal degin ayaa laga dabaal degay magaa qudbadiis bay ku jirtay deegaankayga iyo Soomaaliya way kala go'an yihiin waan isku soo xidhiyaa dubbe bridge-kii wuxuu aasaasay seeskii buu aasaasay insha Allah taala oo dhameystiri doona haddaan anagu nahay kooxdii khaatumana waa kala shaqeynayna haddaan kooxda khaatuma nahay cali ma dhiman annaga joogna heshiiska halka jeebkaygu ku jira heshiiska cala la galay one by one baynu dhameynaa insha Allah taala Soomaaliland waa midaynayna qabyaaladeennu ka saarayna waxa lagu bixin doona aqoon qofka si aqoontiisa ayaa wax ku siin doona insha Allah taala darajo mustaqbal fiican bay leenahay ilaahay hogaankayna hagaay subhanahu wa ta'ala ilaahay hogaankayna hagaay salaamu alaykum wa rahmatullahi